واحد dunida lagu leeyahay rag baa dayax tagay iyo nin baa dhulka galo badda hoostiisa wax ka soo saaray waa bashar kula mid ah mucjisaad meeshan ma jiraan yani dadka ducafada loo waxyooda rag baa horumar wax la yiraahdo ma jiro waa rag baa tashaday wax la yiraahdo jira waad horumari kartaa waxa doontaad ka sameyn kartaa misaal basiit aan si abnaa isahwa nin kamid oo muslim oo engineer aan kula kulmay Sweden wadanadan reer galbeedka wadan kamid ah وأن تجربة وحيابها كان وهاف في سيجات الماما إليه ويجي ورشة في صان صاعكي ما ترتبوا إليه ورشة عالم كنت على ما أنت وحصان صارته وإيش الله يسار إلا يوان طمينيا لكن وحلا لا يهبوا لا يومضي ربتي وحكا لا بكيس أنت جاي يا لك ويسوي قعنتي سكو سمية وين الصوماليين فكسوح يجري مصطفى وقال ميل ما شرتيه عد سكروا ذي ويدو يقول ورشدا هرم مريا كم با هرم مريا هالويل باص ما يكره يعني محان تلمامية وحان تلمامية دد أمبيشن لانشرين دد دونيس لانشرين دد وحدونية والربا وحنيني قادان وحنينو هيكسدو قفك الربا وحنينو قادو قادية هذا يراته هذا واتو وقته انتو دونا يا حقاته واد غاريسا واحد غنتتو اد الهنا وتلا صارت رميسنتينا الله سبحانه وتعالى الهنا كهوجين مايو الهي سغا بلان قادينا ان قفكا مؤمن كا هوجين وحما هوجي الله سبحانه وتعالى ادي همغاغو دب يحي طريقه مريسانا وطريق طاعه الله كسغنتايو يحي وحقيقه يا همغاس لكن وحا لا يا مجتمعي همغا كان حنبار لها اخوتي في العقيده ان هذا الكيد كو بدي مره لكن waxa aan rabaa inaan idin tusiyo warxoogeeni baa leeyna tusin waayay ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ayuha alladina aamanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasu allaha fa ansahum anfusahum hanqonina baa ilaahay kal ladina nasu allah kuwa allah illa bay فانساهم انفسهم الهنا نفتودل عالم الاسلام ما انت عيدك كما رغبنا دنيدي way ooyeysa rag baa loo ooyaya aynaga waxa la yiraahdaa dhasha yareeyo Soomaha waa tiro badan tani halka baa ka sii baxaysa maantana mesela focuska ugu dambeeya Mareykanku ay qoreen gaar ahaan taliskoodu uu qoray gaar ahaan xisbiga maanta maamula uu qoray gaar ahaan kuwii madaxnimada isu soo sharaxay uu qoray mesela shantii nin madaxnimada ku bareetamay xisbiga Mareykanka Republican ka shantii nin madaxnimada ku bareetamay waxa kamid ah wariye caanka ahaan jiray la yiraahdo maxay Mark Buchanan waa nin laba jeer isu soo sharaxay madaxweynenimada Mareykanka saddex madaxweynena la taliyo ahaan jiray 2002 book buu soo saaray la yiraahdo The Death of the West waxa la yiraahdaa geeridii ninka cad ayaa buugga la yiraahdaa waa nin waa raa'idul qawmi la yakdib sahanku been ma sheego reer miyiga dad sahan darataan intuu ku soo noqdo miyuu koodhay meel lama dagaa intuu soo maro roob ayaa la kala taga raa'idul la yakdib sahanku been ma sheego waa nin tolkii u sahan tago wax tilmaamaya oo le mustaqbal bayno ma soo socdo waxa uu ka fikirayaana waxa weeyaan haweenteeni ma rabto inay wax dhasho dhasheenina uu si yaraanaya laba kasto oo ninka cadi buu yiri meelaha qaar kood 1.2 labadii bedeli laha xataa ma sameynayaan buu leeyahay waa zero growth population maaha ee waxa weeyaan almost waa death buu leeyahay chapterska buugga haddaad akhrido waad ka naxaysaa mesela waxa kamid ah cinwaan la yiraahdo maxay xayawaanada si dabar go ayuu cinwaan ka dhigay waa ninka cad buu ku leeyahay xayawaanada u baahan dunida in la ilaaliyo si dabar go ayuu ka waramaya waa waytimaanka wuxuu ka waramaya yani qadaayad aad u waxaan uga jeedaa dunida cid aan mushkilada haysan ma jirto laakiin caalam islaami rag isaga haysta taariikhda yani ihsaayadiyada ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan 2 bilyan inay cagacagaynayaan inkastoo been loo sheego la yiraahdo bilyan iyo 3 iyo meelaha saatiin 2 bilyan inay cagacagaynayaan iyagoo inta cagacagaynaya oo dhulka ugu ballaaran la dunida degan oo ay yiraahdaan taaqa shamsiya cadceedda dhulka ugu badan waa energy ugu wanaagsan cadceed iyo dunida la haysto waxa dunida quudiya rag 3 bilood wax beerta soo Yurub lama yiraahdo dunida kaalmeynaysa waxba la beero la siinaya 3 bilood baa wax la beeraa adna 12 bilood baad wax beeran kartaa iyo hadana waa lagu quudiyaa bal u fiirso nin 3 bilood wax beerta ayaa wuxuu wax siinayaa nin 12 bilood baa wax beeran kara
همي سيدان بك لجديسن عالم الإسلام يقول كوقف عنا وحكب حنا عد عدل أبو هيستا بل إلهي وحر دقي طاقة دنيا ده إنرجي دنيا ده أردن أنت عالم الإسلام وهو سيال بويا الله شدالك أنت خليج كوش بتسموه أنت كلنا أنت راشة مكعي هوست الله شنت الدولة ده يرى وكعي عالم كواحد بترول يا الله مسلم كجنت عقيس وسيا الله وحنا معادن تعالى أنت وجب بدنا يجي عقوه ده كوشف وحكم مقارنة شراء إلا يوم حي عقلي قال لك دقي تودينا ويكتجا تكلنا ما يستاهل أهلنا هدينه هموم حنبارنهم الأمة الإسلامية سيدي ما أنت سوي إسك بدلس همي هدين الحنبارة وما بهني همي كلار دقالة هي باب كله وحنو بهني إن إلهي كتاب كيساسون قرآن الله إن إلهي الدين كيساسي دك مسلمين تقف ولا كستام مسلمين إنه إسكت ده كتاب كان المسؤولية ده كسارت كتاب كان قرآن كا يسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه المسؤولية ده كسارت كلمة أنا ذكرت جاي وحويان وارهم بيجان حنبارة دنيا ده بدل كريسان دنيا ده يدين كأساتذة دواء لكن أستاذ أنا وجيم بقى كور هدي ما أنت هذا الكلام مرتبط قرارة دي يرهشوا هاي كولت قرارة دي أنت لك وحن قيمة لهين سماها هدي كون وحبار بارون تجميد وجيسوا عن كايرا وكيرا الله دايما بتته قرار ده حاجة دقيقة كريستال كي رايا هذا درس الهاي ده حويه ما قرارا هذا يقول هو دايما دون انت $1 مليون بيسد اي سيده واحد قرن وايل هي halka du hoyn lahayd warcaawa tanuna halkaas ka dhigtaan bal waagaasiin bariyay meel aad dhig lahayd maad garateen ka waran ninka wahyi samaa sidii aan ogeynba wahyi samaa cilmi aan gafba ku jirin ba haystaa maba ogaba nin meel madow socdo kuleeyay aan ku daba galo nin meel madow gudaya ayuu leeyahay aan ku daba galo oo himbiriirsanaya maxaa ku daba dhigay adaaba wahyi samaa sidee ragi wahyi samaa sidee maxay lahaayeen ربعي بن عامر محور رستم كلها غزوة القادسية مركا يدعدي دقال كاسي اللي يسكو هيي او رستم يري وربا لمن كان المسلمات وحصوص صاري انا من تالتي قودي عقل قودة كان يسوي فكريات بل عيدي صدر ابوي سعد بن ابي وقاص واحد من 10 المبشرين بعينك هو قامني وحدوطك صدح سحابي بكل بمدو درا كيكو هذا اللو درا وتجي isagoo warmihiisa iyo wixiisiiba sita waxay yidhaahdeen warmaha iyo hubka loolama galo madaxdayada hubka dhigo madaxdiinu iyada ay yeeratay widaahdaydan doonay oo iska noqonaya hubkaygaan iska dhigi maaye waa la soo qaado maayo isagii baa loo tagay ninka caankaas uu sheegaya baa leeyahay anigu hadaan ma hubkayga la sii deynay way iska tagaya soo daayay buu ma hubkiisa fars yaro gaaban buu wataa leeyahay oo iska soo qadiifada iyo ninkan wuxuu rabaa inuu muujiyo dawladnimadiisa inta laagtay banaana dhanbu qadiifada dhigtay sariirtii boqortooyadana uu saaran yahay qadiifadihii buu iskala soo barkin yaro halkan la dhigo waran ayuu ku xidhay baa leeyahay faraskiisii isagoo warankiisa iskala tukubayo u gala wuxuu weydiiyay maxaa idin soo saaray wadankii yani hadii idin ka keetay gaajo iyo xoolo iyo waxaana idin siinay yani xoolo buu leeyahay arigiina ku noqda wuxuu yidhi ilaahay baa na soo saaray allahu ta'ala ilaahay baa na soo saaray noo sheegtay ilaahay baa na soo saaray wuxuu noo soo saaray buu leeyahay inaanu ka saarno dadka ay adoonsadaan oo ilaahay dadka adooma uga wada dhigno waxaan u soo baxnay buu leeyahay dadka inaanu ka saarno dunida cidhiidhigeeda waanu ballaceeda geyno bal labada nin hadda u kala fiirsiyo adduun waxay kala haystaan ninna faras yaro gaaban buu ka wataa iyo laba waran ninna carri buu gogoladay laakiin ninka faraska yar fuushan baa wuxuu leeyahay dunida cidhiidhigeeda ka saaraya oo waxaan ku geynayaa maxay ila sicatiha waxaan kala soo baxay buu leeyahay inaan idinka saarno diimaha haysataan dulmigooda oo aanu idin saarno cadliga islaamka iyo cadda yani waa nin ustaad isku kalsoon waa professor u arkaya inuu yahay rasuul ilaahay rasuulkiisii xaqiisa laga soo diray oo umamka xil ka saaran yahay oo raba ummadahan habeenka gudaya inuu habeennimada ka saaro maadaama uu boos ka rumaysay inuu taagay wuxuu arkaa dadkan inay masaakiin yihiin waayo waxa ka maqan hadiga ilaahay adna adigoo hadiga ilaahay sidaad soo aragtaa inaad tahay maxay qof u baahan mujtamaca caalamiga iyo maxay yiraahdeen maanta yani taabirta cusub la sheego world community maxaa la sheegaa mujtamaca dunida هن سوقا ريو إن مجتمع الدنيا ده واحد قبنا أي مجتمع دنيا أهل كفر ما دو يري صادقوا إسلام سده
هذا إسلام سداد وحوق بسنكر إلى هذا عدك لدب الصعطة كلمة ده وحكو سيوكا يا إخوتي في العقيدة أنو إذن ملي هو رعد بايدين مقال iyo xoolaa idin ka maqan xoolaa idin kama maqna hub idin kama maqna waxba idin kama maqna wartala idin ka maqan iyo raganimo waxa idin ka maqan hammi waxa idin ka maqan qalbigiina kan inaad dib u xisaabisaan oo agarataan waxana xambaarsantii inuu yahay waxyigii Ilaahay ugu tala galay in dunida lagu hagaajiyo waxyigii dunida oo dhan loogu tala galay sidaanay wax bixiya idinka wax leedii ka sugayahay cid waxa ka sugina ninka la sugayo waa adiga laakiin haddii adigii lagu sugayo aadnaad cid kale sii sugto markaas ay umadu jabto dunidu waxay dulmiga gashay ee faraacinadu u hogaamisay waxa loo waayay cidii hogaamin lahayd ahlu xaq ahayd waxaan kalmada ku soo koobaya markaasi ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha la xasuusto isagana ha la tala saarto wallahu a'lam billahi tawfiq